madaxda reer galmudug oo ugu horeeyay sheekh shaakir iyo dhammaan shacabka reer galmudug waxaan ugu hambaleynayaa agaasimka munaasabadan aan isugu nimid oo aan aaminsanahay inay baal dahaba ka geli doonto taariikhda ummadda Soomaaliyeed marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo martida noo timid walaalkay ambassador Giyo oo matala urur goboleedka IGAD iyo walaalkay ambassador Madera oo noogu yimid iyaguna halkan inay noo muujiyaan inay dadka Soomaaliyeed garab taagan yihiin meel walba ay joogaan gobol walba ay joogaan waad ku mahadsantihiin garab istaaga waa ku mahadsantihiin inaad magaalada Dhuusamareeb noogu timaadeen si aad noo garab taagnaataan halkan maanta fariinta ka muuqata oo la soo gaabiyay waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed ku tallaabsadeen rajo iyo horumar khawaarijtana hoogooda laga cilaamiyay galabta halkan waa reer galmudug oo fariin u diray Soomaaliyada inteeda kale oo yiri nagu dayda walaalayaal maanta halkan waxaa ka muuqda magaalada Dhuusamareeb in wixii 11 maalmood ka hor loo maleynayay inaanay maskaxda geli karin inaad indhihiina kuwa halkan jooga iyo kuwa dunida naga fiirsanayaba aad ku daawanaysaan in askartii magaaladan iyo gobolkan soo difaacday oo ahlusunna wal jamaaca xabad xabad loo diiwaan gelinayo loo qarameynayo si ay u noqdaan xubno ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa socota shaqo kale oo meelaan halkan ka fogeyn ka socota oo iyagana isla ciidankii ahlu sunna qaar ka mid ah loo diiwaan gelinayo inay ka mid noqdaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa sidoo kale socon doonta maalmaha soo socda shaqo intaa la mid ah oo iyagana loo diiwaan geli doono xubno askartii halkan ka soo halgantay ka mid ah ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ciidamadaas iyo hubkooda laga bilaabo maalinta la diiwaan geliyo waxay qayb ka noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu difaaci doono qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed sidoo kale waxay noqon doonaan ciidan ka amar qaata taliska ciidanka xoogga dalka ama booliska ama nabad sugidda ama asluubta mid walba la diiwaan geliyo meel walba oo waajibaad looga dirana ay u tagi doonaan Soomaaliya oo dhan ciidanka halkan lagu diiwaan gelinayo marka iyo hubkaas la isugu agaasimayo in lagu xoreeyo waddanka laguna dabar gooyo khawaarijta waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro shacabka reer galmudug dhammaan meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa cadaado jooga iyo kuwa gaalkacyo jooga kuwa xeraale jooga iyo kuwa huursho jooga kuwa caabud waaq jooga iyo kuwa balanballe jooga qof walba idinka mid ah hub iyo wiilal haysta oo fahamtay dawladnimadu inay tahay mid halkan ka socota
والله إذن صدر يا إذا ماذا حوق دلك الصوماليات يكون ملتر بوليسكا يكون السلوبتا يكون نبت سجدة صوت دياري هبكا يويلش والو الديوان قلنا يا والو قرمينا يا قل مذوق وحيكوس عطا إن النقطة أستان تقرنك أستان دولة نموعد رجال مذوق وحيفهمين إن قف والبا أي قرى مالكو هايسطو إن قف والبا يهوب مالكو هايسطو إن يكون أكسنتها هوب كدولة دين هايسو إن قف والبا أي إسكد دفاع هذا قف كلا أو أي قرى مال تاجناتو إن قف والبا يفهمت أمن قاعد إنه كجرين القرى هايسطو رجال مذوق ويبدلين وحيفهمين إن هوبك يقريها يعيدنك لسوق هالمال أو اللي يرادو دولة صوماليات هي مستقبل حكومة الصومالية. عسكري والبا وهل كان لو ديوان قلي ما أنت وحيالن دونا واجب عصب وحيل دونا حقوق عصب مشاركي سعيد لو مسو ديبي دونا بنجيسا هل كان مصول كفرت الله صار لو سو شو بدونا تلياشة هل كان جوجا غيب كان نقول دونان تلياشة عيدا كحوق دلك الصوماليات مال والبا ومسؤولية واجب لو قدروا أي يجون تيجي دونا وعن ربا شعبك سياسيين تا مسؤولين تا جناح ستة رجال مدك inaan maanta ugu yeero fikirkan haddii 11 maalmood aan ku gaarnay in madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda ahlu sunna madaxweyne xaaf iyo madaxda ahlu sunna oo Sheekh Shaakir ugu horeeyo ay aqbaleen in dadka reer Galmudug ay doortaan qofka iyagu ay rabaan inuu madax u noqdo haddii 11 maalmood aan ku gaarnay inaan intaas oo qof isu keenno haddii 11 maalmood aan isu keennay ciidan iyo shacab haddii 11 maalmood aan ku gaarnay in halkan lagu diiwaan gelinayo ciidanka ahlu sunna oo qaramaysan tayaysan oo toosan qof walba oo reer Galmudug waxaan rabaa inaad isweydiiso haddii 11 maalmood aan intaas ku soo gaarnay sanad iyo 2 iyo 3 xagee baan ku gaari karnaa haddii aad siyaasi tahay u danay dadka Soomaaliyeed oo walaalaha oo Galmudug jooga haddii aad ganacsato tahay u danay danta guud waa inaad ka hormarisaa danta gaar waxaan u mahad celinayaa wiilasha iyo gabdhaha aan ku arkay Dhuusamareeb ama Guriceel ama Huurshe ama Xaraale ama Caabudwa ama kuwa noo soo qoray Facebook-yada oo reer Galmudug oo meel walba jooga oo maanta rajo arka waxaan idin leeyahay dawladdiinu way idin garab taagan tahay ma daalayno ma niyad jabayno gadaal aadi mayno ma cabsanayno inta aan guusha idin kula hubsanayno goolka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu